2021 waxaan noo yimi yani wareysigan ku duubayna meesha waxa weeye waxaan joognaa referral health center Bargal anigoo ah Istanbul Ali Aadan maamulaha caafimaadka ee degmada Bargal waxa weeye waxaan kadaan ka waramo anigu waxaan bilaabay shaqada 2013 haddaan bilaabay 2013 meeshaan la ii dhiibay waxay ahayd iyo maanta siday tahay laba ayay kala tahay waxa weeye marka meeshu aad u dayacneed dhibaato weyn baa ka taagneed shaqaale badan ma lahayn daryeel fiican oo ma artay ay heli jirin inkastoo wasaaradda caafimaadku ay soo siin jirtay xoogaa yar ma daawooyinkana ay laga keen jiray WHO UNICEF aan u malaynaa inay ahayd meeshuna ma artay meel fiican oo saas shaqadeedu u wanaagsan tahay ma ahayn marka 2013 marka anigu imi meeshii waxaan ka bilownay inaanu maartay isbedel ku sameeyno aan ku sameeyo sidii maartay khibradahaygii hore aan watay aan ku soo shaqeeyay marka waxaan bilaabay inaan marka hore dayactir iyo ma aragtay biyihii iyo nalkii iyo nadaafadii iyo wixii aan galno adigu meeshoo dhan aan bedelno wixii ma aragtay rehabilitation u baahan oo dhan ama dhismo u baahan oo marka aan awoodeeda aan marka aan haysano anagoo isku tashi ku sameynayna waxa annaga iyo dadka bulshada waxaan ku leeyahay wax weyn baan u sameynay ilaahay waa nagu garab galay wixii naga dhinaa oo marka awoodayada ahayna waa keenay annagoo marka saa ula daalaa dhacayna annagoo ma aragtay isku tashiga ku soconna baa waxaan noo yimi 2015 hay'adda UNICEF Safe Children baa noo timi Safe Children baa waxay naga caawintay shaqaale badanna noo keentay mushaharkii shaqaalahana la wareegtay muxuu ahaayay ilaahay mahad ka gaadhay wasaaradda caafimaadkuna dadaal weyn bay ku galeen sidii ma aragtay arintaas u hirgali lahayd caafimaadka oo degmadu kor u soo kici lahaa isku duwaha ahaato adigu aad baan loola dadaalay sidii loola soo kicin lahaa hay'adana ay maartay noo maartay caawin lahayd marka ilaa hadda laba steep baa maartay naloo EBHS kan maartay barnaamijka kan hadda JASP oo nala shaqeeya iyo maartay aad baan loola soo dadaalay shaqaalaha mushaarkoodu waa bil walba waa dhag maxay ahayd daawadu waa iska daba imaanaysa wax gudbinaa xog meesha waxay ku shaqeysaa shaqooyin badan baa qabanaa waxaan ugu soo biir waxaan ku dhalinaa hooyooyinka in muddo ah 6 sano hadda ay nala joogtay Safe Children dhalmadii degmada waa lagu dhalaayay meesha MCH ka wuxuu noqday referral health center awal wuxuu ahaa ma aragtay MCH caadi ah hadda referral health center oo hoos yimaada tuulooyin badan oo hoos yimaada waxa hoos yimaada taageer maxay tahay waad khayr muudiyo muxuu ahaay qorraxaad ilaa iyo hadan dhinaca marka loo kaco cumaayo maxay ahayd xeelo meelo badan adoo ilaa iyo abdeexaan ilaa iyo hadda waxaan bilownay inaan caawino iyadana muxuu ahaay qolada la yiraahdo muxuu ahaa hadda aan talaalka ka wadnaa iyo inaan gaarsiino qolada la yiraahdo xoogaad iyo agagaarkeeda aanu gaarsiino tulooyinka la koosimaada waxa kale oo aan sameynaa maartay muudiyo iyo hooda iyo dibir iyagana waa la ka shaqeynaa marka meelo badan ayaanu ka shaqeynaa wixii oo maartay dhibaato la soo kulma waa qabanaa ambulance baan aan la siiyay qoladan la yiraahdo Mareykanka ay nasiiyeen dhismo iyo noogu dareen bahashaas 2014 iyadana ambulance iyagana uu noo jooga wixii maartay gudbino oo maartay qof dhibaataysan gabdhaha marka dhalayaan oo kale hadii ay dhaliweedo gabadho ay u baahato operation waxaan geynaa Boosaaso taasoo nagu ah caqabad aad u adag marka ambulance kan ku qaadnaa wixii maartay ajab iyo ama dhibaato weyn ugu timaadaan ambulance kaasaan ku gudbinaa waxaan qabanaa hawlaha caruurta yar yarka ah dadka waaweyn hooyooyinka uurka leh talaalkooda caruurta talaalkooda ay talaal nooc kasta ayaa noo maqan oo noo yaaloon ku shaqeynaa maxay ahayd waxaan kala qabanaa ilmaha yararka nafaqa darrada iyagana OTB-da waa u sameynaa iyagana waxaan siinaa biscuit nafaqeynta hooyooyinka waxaan ku shaqeynaa waxaan siinaa maxaan oo joogan hoos yimaada MCHN TSB iyo OTB saddexdaas nooc way ka shaqeyn oo nutrition ka ah oo ma artay
lagu dhaqaaleynaya caruurta iyo hooyada urka leh haddii ilmuhu ay nafaqo daran yihiin haddii hooyadu ay nafaqo daran tahay waxaasoo dhan iyagana raashinkaas quudintaas ayaanu siinaa waxaa kaloo jira maxay ahayd daaweyntooda wixii maaragtay u baahan xataa jabka maaragtay magaalada waxay sameeyaan waa kabaan wixii markaa raaji x-ray u baahan xagga u dirnaa marka magaalada caqabadahan challenge-ga jira waan kaga sheekeeyo waxa way hadda qof hadduu soo jabo oo kaleeto buurahaas dadku waxay ka shaqeeyaan alaaba xijiga iyo maaragtay doonyaha iyo waxaas haddii qof emergency uu ku yimaado maaragtay ma hayno x-ray ma haysano gabadha haddii ay dhali weydo ma hayno maxay ahayd cesarean section ama operation laguma samayn karo marka dhibaatooyin weyn baan haysta xoogaa qololku waa nagu yaryar yihiin iyagana haddii aan maaragtay aan wax ku samaysto stoorka waxaan ku leeyahay dhismaha qaar baa nagu yar oonaan haysan hadda store ma haysano qol aan operation theater ku samayno ma hayno hadhow anesthesia loo baahan yahay ilaa 3 qol 4 qol haddaanu heli lahayn oo kaleeto waxna loo ka qaban lahaa wax dhan ay noo ahaan lahayd marka waxa way caqabado badan baa jira waxa weeye waardiyaha hadda ka shaqeeya meesha isbitaalka meel uu seexda ma haysto banaanka ay qoraxdana fadhiyaan maalintii habeenkina kanaacada ku cunaysa iyo roobkii qoraxda marka dhibaatooyin badan baa jira marka intaas ayaan ku ekeynaya haddii ilaahay yiraahdo biidna illaahi alkariim waxyaabo kaleeto oo iska ilaa waa dhici ka dhaa waxaan idinku soo dhaweynayaa haddii ilaahay idin magaalada Baargaal dadkeedu waa dad aad u fiican oo dadka maaragtay jecel horumarka marka waxaan jeclaan lahay adaha dadka dibadda jira oo u dhashay wadanka qof kasta uu yahay in maaragtay la caawino oo loogu dadaalo sidii ay maaragtay dadkaasi wax u qabsan lahaayeen oo looga caawin lahaa wax qabsiga marka waxa weeye haddii ay tahay dad qurba joogta haddii ay tahay dadka magaalada u dhashay haddii ay tahay dad kale samafalayaal marka waxaan jeclaan lahayn in dhibaatooyinka challenge-ga aan sheegnay waxna loo ka qabto oo nala ku caawino wixii markaa naga maqan ilaahay idankiis بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي وحاوة محمد waxaan ka mid ahay mudwafka ka shaqeeya xarunta health referral health center Baargaal waxaan nahay shaqaalayaal badan baa delivery ka shaqeynaa ugu yaraan waxaan u nahay 5 qof baan nahay 3 qof waxaan nahay kuwa lafaf mudwaf 2 qofna waxa weeye community mudwaf oo hooyooyina si fiican ay soo shaqeynaa ma sha Allah hooyooyinku inoo joogaaniin community mudwafka hooyooyinkuna xarunta way ku xidhan yihiin markasta way yimaadaanin oo xarunta ay ku umuraaniin markasta maadaama ay nala joogaaniin hooyooyinkii community mudwafka ahaa xarunta ay ka shaqeeyaanin saas ay si fiican ay ugu xidhan yihiin markasta marka anu waxaan ahay mudwafkaas qaybta delivery-ga ayaan aad u qaabilsanahay delivery-gu ma sha Allah way agab kasta uu noo yaalaa wax saas oo naga maqan ma jiraanin waxaan haysanaa sariirihii laba sariirood baa noo yaala sidoo kale waxa noo yaala 2 miisaan sidoo kale waxa noo yaala istuufadii oo aan qalabka ku nadiifsanayno sidoo kale waxa noo yaala sariirta yar tahay oo ilmaha yarka ayaa noo taala oo sariirta yar tahay oo ilmaha yarka baa noo taala sidoo kale waxa noo yaala wax kasta oo ilmaha oxygen uu ku yiraahdo oo maxay complication newborn care ku yimaado aan kaga hortagi karo noo taala sidoo kale ambi baagi ma noo yaala section kii noo yaala oxygen kii noo taala marka hore ilmo marka duu oxygen noogu dhasho ambi section u sameeyna hada section kii uu noogu soo kici waayo ambi baaga u bedela hada ambi baaga noogu soo kici waayna oxygen ta ayaa noo taala fallaahi xamdi oo aanu maxay ku kargareynaa hooyeenka mudwaf maxay kumid mudwafka aad bay noogu tababaran yihiin wax kasta waa tusnay wax kastana way nala fahmayaanin waxaan nahay shaqaale aad isugu kalsoon aad iyo aadna isugu qanacsan oo ma sha Allah aniga waxaan ahay qaybta ka shaqeeya bartograph-ka noo dhex yaala maxay ahayd oo bartograph-ka meesha noogu jira oo hooyada marka hooyo kasta xaaladeeda waxaan kula soconaa bartograph-aan kula soconaa saan waqti hore go'aan u gaari karo maxay ujeedadaan u gaari karto hooyada bartograph muxuu ka caawin karaa hooyada bartograph muxuu ka caawin karaa inay go'aan qaadato hooyada ama boronaanka laabar ay ka noqotay mise horta boronaanka laabar hooyadana ma ay noqon marka hooyada markasta contraction-keeda ayna xaaladeeda marka hooyadii markii aanu bartograph-kii uu nala galo action-leenka waxa noo cadaanaysa hooyadan inay tahay boronaanka laabar marka saas ayaanu xaaladda aan ugu soconaa bartograph-kina waa ka shaqeysanaa markasta hooyada waa la joognaa community-ga iyagana way nala joogaanin waana community ma sha Allah oo noo tababaran
markastana wax kasta oo training ama tababarna lagu soo siiyo oo ay noo soo sheegto tababaradu ay noo soo sheegaaniin waan u soo gudbinaa waa u sharaxnaa hooyooyin inta tanaa soo faa'iidnay baan dhehnaa maadaama iyagu iyo tababarka hooyinka community-ga u bixin wix kasta oo naloo soo sheego marka xarunta nimaadno ayaan iyaga u celinaa waxaan dhehnaa intaan isu keeno waxaan hooyooyin saakana jirta intan iyo intana nala soo baray intina waa usoo gudbinaa wayna nala qaataanin waxna naguma diidaanin marka annaguna maasha allah xarunta way fiicanta daawo kasta way taal farmashigii baa yaala hooyadii markii aanu sariirta kasoo ragno ay noo dhasho iyadii ilmaheeda ay caafimaad qabaanin ilmihii breast feedingkeedii u qaato iyadiina wax complication aanan ku hayn sida BPH aanan ku hayn sida hooyadii wax shoogaya naga gelin sida kale hooyadii maxay ahayd waxyaalo kaleeto oo hooyooyinka u imaan kara ayaan hooyadii qabin waxaan u gudbinaa qol outpatient ayaanu u gudbinaa qolkaas sariir ka saaraa hooyadu haddii xaaladeedii halkaas xaaladeedii kula sii socnaa iyadii ilmaheedii haddii xaaladda hooyadii ay fiican tahay one day sidii joogaysa xarunta caafimaadka haddii iyadii ilmaheedu ama ilmuhu uu xoogaa ka xanuunsan yahay ama iyadii aanu caafimaad wanaagsan aan ka dareemi weyno 2 days aan uga dhignaa ilaa hooyadu naga baxdana kama aanu saarno xarunta caafimaadka xaaladeedana sakin kasta waa la soconaa sakin kastana waa jeegaraynaa marka waa sidaas maasha allah marka waa mahadsan yihiin Safe Children iyo wasaaradda iskaashanaya sida wanaagsan oo iyaguna daawada iyo wax kasto care u baahan nagala qayb qaataan annaguna shaqaale aan u shaqeyno dadka maasha allah Saalax Maxamed Ciise waxaan ahay qayb waxaan u qaabilsanahay xarunta MCH-ka referral qaybta laboratory-ga sida arkaysaan laboratory-ga maxnaha waxaan baaraa waxyaalo badan baan meesha ku baaraa waxaan baaraa malaariyada HIV-ga ESR-ka tifowga bruselka waxyaalo badan infectionada kaadida saxarada hadii waqti loo heli karo macnaha inkastoo qolku nagu yar yahay waa baaraa waxaan sameynaa ummadda wixii adeeg oo sheybaarka ah wixii awoodeena ah baan baaraa saa u jeedaan kaadida kan oo kale urine analysis baa la dhahaa waxaa lagu baaraa kaadida ayaa lagu baaraa oo proteinkeeda waxaa la baarayaa nooca lymphocyte-ka urologica protein inuu ku jiro dhiig inuu la socdo ketone qofka matag leeyahay sonkor inuu qabo baan ku hubinaa HB-ga waxaan isticmaalnaa laba qaabkan mashiinka ah beecood loo dhaho iyo qaab sahal method-ka ah oo sahal method-kana waa isticmaalnaa laboratory-ga waa noo yaala waa kan centrifuge-ki isna waa isticmaalnaa waa noo yaala sokorta iyadana waa baaraa waatan saacadeedii waa sameynaa waxyaalahaas oo dhan ayaanu u sameynaa dadka marka hore hadda magaciisa la qorayaa book registerkii baa noo yaal magaciisa la diiwaan gelinayaa meeshuu ka yimaa qoraynaa kadadaadiisa qoraynaa saasaan u habeynaynaa marka waxyaalahaas oo dhan baan sameynaa wixii adeegaas oo halkaas adeegyadaas oo dhan baan sameynaa waxaan sameynaa oo kale gaaska baloriga gaaska waxaan kaloo sameynaa gaaska waxaan kaloo sameynaa infectionada WBC-ga waxaas oo dhan baan sameynaa marka waa kaas marka xaruntu waxay shaqeynaysay hadeer muddo dheer ilaa 10 sano meelahaasay ka shaqeynaysay oo xaruntu ummadda u adeegaysay habeen iyo maalin saas ugu shaqeynaya ummadda wixii dadaalo inta u sameynaynaa ummadda wixii awoodeena ah marka
hadda xaruntu xaaladeedu waa sidaas. marka waxyaalo naga dhiman oo waa jiraan qolka oo nagu ciriiriya oo halkaas u jeedaan meesha yar waan wax ku baaraynaa oo u jeedaan oo meel yar weeye. marka waxaan ka codsanaynaa wixii wax dadka wax ka geysan kara oo dadka caawiya oo xarumaha caafimaadka iyo waxa inay wixii ku caawin karaan inuu ku caawiyaan waajid xarunta u jeedaan laakiin way wax kasta u dhameystiran yihiin haddana laakiin meeshii lagu shaqeynayo waa oo meel yar oo kuleyl ah oo u jeedaan oo qol yar oo ciriiri ah wax walba lagu sameyn karo. bismillaah magacayga Asiin Maxamed qolkan fadhiyo qolka waxa weeye NNC BNC delivery isku jir hooyada maalintii waxay yeelatay ilaa intay ka dhaliso hooyada mar walba hooyada oo marka warka yeelatay xaaladaha caafimaadka aan kala socno waxaan ka mid ah in markii hooyada noo timaado daawooyinkaasina oo xaniyaadka aan ka qaadno sidoo kale hooyooyinka waxaan u sameynaa mar walba waxaan siinaa counseling-ka siinaad sidoo kale waxaan sameynaa hooyada markii noo timaado sida dhererka miisaanka saarnaa dhererkii isaymantii marka loo sameynayana tariinkaasaan saarnaa mar walba xaaladeeda caafimaadka inaan ka warhayno aan la socodsiino xaaladeeda caafimaadka mar walba kala socno HB-dan kalaan ka qaadna testiyaa loo dirayaa bahalkaa loo sameynayaa mar walba xaaladdeeda caafimaadka ka warhaynaysaa oona imaanaysaa caafimaadkeeda mar walba lala socodsiinaysaa. sidoo kale hooyooyinka waxaan u sameynaa waxaan yiraahdaa miisaanka u sameynaa dhererkiya u sameynaa assessmentation marka loo sameynayna sariirtaasaan saarnaa ilaa alxamdulilah qaabila qolkan markaas waxaan qaabilnaa carruurta 5 sano oo soo yar waxaan xanuunada badan qolka waa qolka andhafeedka qaybta ciyaalka waxaan ka daweynaa carruurta xanuunada qaarkood oo kala duwan sida xanuunada bukiitada oo kale oo xanuunada badan carruurta ku dhaca ku yimaada iyo talaalka iyo qaybta nutritionka saddexdaas u qaybsanaa qolka inta lagu qaabilo ciyaalka. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga Sacdiin Maxamed Cabdiraxmaan waxaan u shaqeeyaa IYCF degmada Baargaal waxaan ka shaqeeyaa hooyada iyo dhallaanka baan u shaqeeyaa hooyada uurka leh iyo marka ay dhasho ilaa 2 sano waxaan siyaa wacyigelin ku saabsan naasnuujinta waxaa kaloo jirta hooyada marka ugu horeysa MCH ayaan kusoo xiraa xarunta caafimaadka kadib way soo xiriirtaa way timaadaa intay uurka leedahay 3 bilood 3 jeer bay noo timaadaa talaalkii bay qaadataa baraasharkeeda laga cabiraa HB-ga laga cabiraa daawadeeda la siiyaa kadibna way noogu dhashaa waa ku xirnaa hooyada MCH-ka noogu dhashaa koorta noo dhashay kadib waxaa halkaa ugu bilaabaa naasnuujinta xuquuqda ay lahayd baa halkaa laga siiyaa kadib ilmaha ilaa iyo talaalka uu dhammaysto ilaa 2 sano MCH-ku way ugu xiran tahay hooyada waxa weeye aad bay maasha Allah MCH-ka loogu xiran yahay bulshada aad bay ugu xiran tahay shacabka kale waa ku xiran yihiin aad bay wacyigelinta wallaahi u shaqeysaa teendhadaasaan joogaa qolada wasaaseef baa noo dhistay khayr Allah siiyo maasha Allah waan ku faraxsanahay Allah ka ajir siiyo wax qabadka ee noo qabatay welina ma soo marin seef oo kale insha Allah haddana Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inay shaqadeen noo sii socoto wada shaqeyn wacan shacabkana aad bay u fahansan yihiin naasnuujinta nadaafadda talaalka ku xirnaashaha MCH-ka wax walba aad bay shaqada hadda noogu kala socotaa waa u jeedaan u maleynayaa maasha Allah. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Aamina Maxamed Maxamuud waxaan ku qornahay ama aan ka shaqeeyaa qaybta family planning-ka ama ilmo kala fogeynta hadba sida loo yaqaano qaybtaas oo ah qayb runtii faa'iido weyn ay ugu jirto hooyada ilmaha aabaha familiga qoyska iyo dhammaan bulshadaba waxaan kaga shaqeynaa 4 qof 2 qof oo qualified ah iyo 2 qof oo iyaguna wacyigelinta noo qaabilsan
oo intaan dadku aysan xarunta imaanin marka hore soo wacyigeliyo u soo sheega feedback iyo faa'iidooyinkiisa iyo waxyaabaha looga baahan yahay laga helayo qofkii qaatay uu ka helayo marka anagu waxaan qaabilsanaa qaybtii dawooyinka iyo la talintana waa ku jirnaa waxaan u isticmaalaa qaabab kala duwan marka waa loo qaybood u qaybsamaa feedback qayb waxaa loo yaqaanaa traditional oo waa wax kuma tacalluqto wax dawooyin ah qofka lama siinayo qofka wuxuu isticmaali karaa isagoo gurigiisa jooga aan wax dawooyinana uusan qaadin xarun caafimaadna uusan tegin qayb kale baa jirto labaad oo loo yaqaan habka casriga ah ama modern waa qaybta anagu hadda aan ku shaqeyno oo dawooyinka loo isticmaalo iyadoo naftirkeedu way fara badan tahay waxay isugu jirtaa dawooyin afka laga qaato cirbada la isku duro qayb implant loo yaqaano kuwa makaan dhixiyaal ah marka intaan uu qofku noogu imaan xarunta marka koowaad waa soo wacyigelinaa wacyigelin baa u sameynaa markaan qofkii wacyigelino oo aan ka soo dhaadhicino family planning-ka hooyooyinka markay qaataan faa'iidooyinka ay ka helayaan ciyaalkooda inay faa'iido u helayaan oo ay kala korayaan ilmihii iyadu nafsadeedu ay caafimaad helayso familkana dee ay caafimaad u helayaan meel nawaaxiyo fara badan oo khuseeya feedback bulshadii ay helayaan caruur kala fogfog caqligoodu wanaagsan yahay koostiga uu ku filaaday waxbarashadii mutaqanjaanis u helay guriga iyo mutaqaana kharashkiisana uu leekaaday markaas kadib dadka aan ku soo wacyigelino oo aan ka soo dhaadhicino family planning ayay xarunta noogu soo booqdaanin markaa kadib waxaan u sameynaynaa qofkii inaanu qaabilo registration loo sameeyo magaciisa meesha uu ka yimaaday age-kiisa miisaankiisa inta uu qofkan dherarkiisu yahay iyo dhammaan xanuuno haddii ay jiraan in qofkan uu xanuunada waaweynka chronic ah incommunicable-ka ah sida qofku inuu macaan qabo inuu sonkor leeyahay inuu cudurrada wadnaha uu qabo markaa kadib qofka waxaan u sameynaynaa wacyigelin ah ama waraysi ah aan ku dhaho aan wacyigelinaa hadba xaaladda uu mataqaanaa ku habboon yahay waxaan u bandhignaa shay walba ama nooc walba hab walba oo meeshaan anagu aan ku bixino qofkaas habkii ku habboon markaa kadib isagaa juus sameeya waxaan kaloo u sheegaynaa waxa aan bixino inta uu yahay nooc walba inta mataqaanaa qofku markuu masalan qofka kiniyada afka laga qaato mid kamid oo kaleeto side effectiga hadhow ka imaanayo qofku marka uu qaato ama dhibaatooyinka soo wajahaya kiniinkaasi inta uu soconayo xilliga uu qaadanayo sidoo kaleeto cirbadihi u sharaxaysaa mid walba aduu dhibaatada ay leedahay hadhow markay hooyadani ay qaadato ayaad u sharaxaysaa markaan u sharaxno kadib waxaan sameynaa qofkaas ayaan sugnaayo oo fikirkiisa iyo ra'yigiisa uu isagu markaa ku qanacsan yahay ama uu jecel yahay ayuu ka doortaa oo markaas laakiin isaga munaasib ku ah haddii qofku markaa masalan uu qaato hababkii mid ka mida laakiin isaga aanay munaasib ku ahayn oo masalan xanuuno uu qabo kaleeto uu diidaya markaasna waa kala talinaa inaynu ka wareego habkan oo hab kaleeto uu u wareego inahaas ayaan ku shaqeeyaa feedback-gaas waana barnaamij aada u ballaaran runtii dadkuna badankooda aysan fahamsanayn laakiin wax dhibaato aan lahayn keliya in dadkii ay la wacyigeliyo oo la fahansiiyo laga dhaadhiciyo uun u baahan waana hab aada u wanaagsan oo dadku haddii ay fahmaanin wax badan ay mataqaanaa ay ka faa'iidi doonaanin marka shaqadaydu waa intaas feedback ayaan u qaabilsanaa qaybtan xarunta baargaal markaan qaabilo qofkii oo habka ku habboon aan siino kadib waxaan u sameynaa kaarar qof walba magaciisu ku qoran yahay maalinta uuna soo booqday habka aanu siinay kadibna kaararkaasba waxaa loogu sameeyaa dabagal hooyooyinkaas kadib mar walba marka ay ku imaanaysona waa inay kaarkaas ay wadataa hooyadu ay kaa qaadatay kadibna kaarkii waa u saxaysaa maalinta haddii ay tiraahdo kiniinkan way igu xumaaday ama caqabadaan kala kulmay waad u bedelaysaa hab kaloo munaasib ku ah baa u sharaxaysaa markaa kadib kay doorato ayaa la siiyaa kaararkaas ayaana u sameynaa hooyooyinka si aan ugu dabagalno family planning inay qaataan dawooyinka inay soo laasatay in kaleeto kadib haddii dhibaatooyin ay jiraan in dhibaatooyinka markaas loo xaliyo mid kale looga guuro kaararkaas wax badan bay fududeynayaan inaa waqtiga aad ku xasuusatid inay hooyada dawada soo dhamaystay in kaleeto inaad ku ogaatid in maxaan ku rahdaa dawadana ay wax badan ka anfacday ama side effect aysan u geysanin iyo in kaleeto billahi tawfiiq